madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa xaliga ka jaray shaybaarka hubinta tayada cuntada iyo sidoo kale agabka la isku qurxiyo oo xukuumaddiisu ka hirgelisay magaalada Berbera. Goreyna waxa halkaasi ka hadlay kana warbixiyay shaybaarkan iyo qaybaha uu ka kooban yahay agaasimaha shaybaarka hubinta tayada Soomaaliland Mukhtaar Maxamed Cali. madaxweynaha dhismaha shaybaarku wuxuu ka kooban yahay xafiisyada oo ah 9 qol iyo waa dhismahan 9 qol buu ka kooban yahay laba hool oo ay soo aragnay shaybaaradu yaalaan cuntada iyo dawooyinku waxa kale uu ka kooban yahay dhisme 3 guri oo ay seexdaan shaqaalaha hay'adu ay dhex degan yihiin madaxweyne guud ahaan waxa kale oo ay hay'adu leedahay laba ijiin oo 24 saacadood baxa oo 220 kilowatt ah oo aad bay waaweyn yihiin ayaa iyaguna noo dhex yaala guud ahaan madaxweyne dhismaha shaybaarkan iyo qalabkiisa waxa ku baxay 528,733.5 waa dhismaha kaliya ta sidoo kale shaybaarka cuntada waxay naga maalgelisay hay'adda Trademark East Africa oo taageero dhaqaale ka helaysa hay'adda caalamiga ee deeqaha Ingiriiska FCDO Foreign Commonwealth and Development Office shaybaarkaasi wuxuu dhameystiray madaxweyne waa kaynu soo kormeernay shaqadiina buu bilaabay waxaana ku baxay lacag dhan $550,000 madaxweyne shaybaarka cuntada iyo cabitaanadu waxay adeegsan doonaan heertayada standardska ay Soomaaliland sameysay gaar ahaan hay'adda dhawrista iyo tayada standardska ay ku shaqeyn doonaan waa standards la sameeyay oo u dhameystiran cuntadu qof kasta oo ganacsada ana uu helayaa oo waa la siinayaa standardska loo baahan yahay horna waa loo siiyay imikana waa la siinayaa haddii la yiraahdo. Waxa isaguna halkaasi ka hadlay Cabdiraxmaan Cumar oo ku hadlayay afka hay'adda Trademark kaasoo ka warbixiyay doorkii ay ku lahaayeen hirgelinta shaybaarkaasi. mudane madaxweyne labadaas sano waxa hay'adda si toos ah u gelinay kharash gaaraya 1.4 milyan qalabkii halka maanta waxa wada keenay dawladda Soomaaliland iyo hay'adda oo bad keentay hay'adda Trademark buildingkan iyo wax inta ka baxsan dawladda ayaa runtii ku deeqday mudane madaxweyne hay'aduhu 15% ama 10 bay kabaan waxa dawladdu ay markaa qorshaysay tanna waa mid lamida oo sida doorashooyinka iyo waxa lamida loo kabo. gabagabadiina waxa halkaasi ka hadlay madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaanu kula dardaarmay dhammaanba mas'uuliyiinta ka hawlgelaya shaybaarkaasi inay ilaaliyaan. waan bogaadinayaa hay'adda baarista tayada iyo maareeyahooda iyo shaqaalahoodaba hawshan culus ee dalka u hayaan iyo bilowga ay bilaabeen inay naga hubiyaan wixii cunto iyo qalab la ismariyo iyo wax kasta oo jirkeena wax dhimaayo oo cabid ee naga soo gaara si aynu taa u gaadho oo inuu xaqiijino waxaa si dhowr qodob baynu u baahannahay marka hore qof kasta maareeyaha ka bilow guddida ku dar shaqaalaha waxaynu u baahannahay qof wal oo hay'adda ka shaqeeya inuu kordhiyo aqoontiisa uu aad isugu u dadaalo in uu barto hawshan aad takhasuska gaarka ah ee chemicalka ah ee caafimaadka bini'aadmiga saamaysa waad soo barateen jaamacadaha ka soo baxdeen iyo iskuullada laakiin taasi kuma filla maalin walba adduunka waxba isbedelaya waxa soo baxaya scientific cusub markaa taa waa ku dardaaraya ta labaad waxaan isku dardaaraynaa hay'adda guddida tayada shaqaalahooda maareeyahooda iyo xafiiska madaxtooyada hoos timaadaanba waxa qura ee xilkan la gudan karaa haddii aynu helno dhowr arrimood marka hore bini'aadmigu sidiisaba haddii xilka uu qaado uu ka soo baxayo mid cibaado
iyo mid nolosha aba diimaha oo dhamme oo ta islaamku ugu weynta ugu dambeysay may fareen in badan digniin badan iyo shuruuc badan oo ilaa dil laga gaarsiiyay haddii uu bini aadmiga dilo ama uu khiyaameeyo Gamta Ismaan Ali wararka Universal Berbera